kulanti wacan halkan waxaan maanta idinkugu soo gudbinaynaa muuqaal ku saabsan gabadhii ugu horeysay oo iyada oo xijaaban oo wariye ka noqota warbaahinta ku taala dalka Canada. Janela Maza waa gabadhii ugu horeysay oo wariye ah oo iyadoo xijaaban war ka soo jeedisa warbaahinta dalka Canada. waxa ay ka howlgashaa kanalka CBC News. waxa ay sheegtay in dhibaato xoogan ay ka soo martay in meesha hadda ay joogto ay timaado. Maza waxa ay sheegtay in Canada ay leedahay qawaaniin ka dhan ah midabka la sooca, diimaha, midabka iyo dhaqanka, taasna ay ka saaciday in ay meeshan ay timaado. waxana ay shaaci ka qaaday in dhiirigelin weyn ay ka heshay warbaahinta kale ee gudaha wadankaasi Canada ku taal. balse waxa ay tilmaantay in bulshada qaar ay u arkayeen si ka duwan wanaaga maadaama aan xijaab si weyn looga aqoon shaashadaha wadankaasi Canada in qof xiran laga daawado marka ay timaado xiriga wararka ama barnaamijyada. waxa ay Janela sheegtay in baraha bulshada ay kala kulantay in sida ay u dhaqmayso aan laga soo dhaweyninin oo dacayado kulul ay kala kulantay dadka baraha bulshada adeegsada. gabadhan ayaa ku dhalatay dalka Panama iyadoo 6 jir ah ayay hooyadeedii la soo aaday magaalada Toronto ee dalka Canada, halkaasi oo hooyadeed iyo sidoo kale iyaduba ay diinta Islaamka ay ku qaateen. asal ahaan waxa ay ka soo jeedaa qaaradda Afrika. Janela Maza oo wareysi siinaysay kanalka Al Jazeera ayaa sheegtay in ay sii labalaabi doonto dadaalada ay kaga dhabaynayso inay riyadeedii meel sare ay gaarsiiso. waxa ay tilmaantay in hooyadeedii ay ku garab taagnayd in ay saxaafadda ay horumar ay ka samayso meesha hadda ay joogto meel ka wanaagsanna ay gaarto.